Wiil Falastiini ah oo qaxoontinimo iyo curyaannimo isku biirsaday oo rajo ka muujiyay tartan buuro korid ah. Saarax Al-Hawamdi, oo ah wiil qaxoonti Falastiini ah, ayaa rajo ka muujiyay tartanka buuro fuulka ah oo uu ka qaybgali doono. Wiilkan oo da'diisu tahay 22 sano ayaa qaxoontinimada waxa uu sii dheer in uu yahay curyaan, iyadoo mid ka mid ah lugihiisa uu ku waayay cudurka kansarka oo haleelay. Waxa uu wacad ku maray in uu gaari doono meesha ugu sarreysa buurta Everest, uuna ku rajan weyn yahay tartankaasi si uu dhaqaalaha uga soo xarooda ugu maareeyo waxbarashada qaxoontiga reer Falastiin ee ku dhaqan dalka Urdun, kuwaas oo tiradoodu tahay 750 ruux. Saarax Al-Hawamda ayaa waxa uu ku nool yahay xero qaxoonti oo ku taala dalka Urdun, waxa uuna wax ka baranayay iskuulka Al-Shuuf oo ay gacanta ku hayso Qaramada Midoobay, balse muddooyinkii la soo dhaafay ay saameyn ku yeelatay dhaqaale la'aan soo wajahday Qaramada Midoobay kadib gaabis ka yimid dalalka deeq-bixiyayaasha. Wiilkan oo bilaabay durba in uu xarig ku koro buurta ayaa gaaray cabir dhan 5,100 fiit, iyada oo dhererka buurtu ay tahay 8,848 fiit. Buurtan waxa ay ku taallaa xadka u dhexeeya dalalka Nepal iyo China. Saarax Al-Hawamda, oo qaxoontinimada iyo curyaannimada ay isku biirsatay bilowgii noloshiisa, ayaa waxa uu sheegay in qaxoontiga Falastiin ay xaq u leeyihiin in ay soo bandhigaan riyadooda wanaagsan. Wiil Falastiini ah oo qaxoontinimo iyo curyaannimo isku biirsaday oo rajo ka muujiyay tartan buuro korid ah. Si aad u heshid warar xaqiiqo ah, dhacdooyin iyo aqoomo kala duwan, subscribe noo saar. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.